halkani oo ah gegida kubadda cagta ee Hargeysa Stadium oo ay ballantu ahayd in galabtaasi rasmi ah uga furmo horyaaladu ayaa dib u dhac ku yimid waxaana horyaalkaasi uu furmi doonaa haddii ay yiraahdo maalinta berri toolaa taasi oo furi doono madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo uu heliya agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo yimid xayndaabka gegida kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaa ka warbixiyay waxyaabaha dib u dhaca ku keenay in galabta uu furmo horyaaladu kullay waxa dib u dhigay Soomaalidu waxay tiraahdaa ajfal dhiman lama tuso kullay qabyo uu baa keentay waxaan isla qooranay in ay dhamaystirmaan oo si sugan ciyaaraha loo furo taas keentay in hal maalin ay dib u dhacdo kullay macnaha waad sagaraysaa ciyaarisa kama oran wixii maanta ahaa beritu waxa keenay qabyo aanu ka fursan weynay in maanta la furo in beri la furo taas keentay ma qabyala kullay xaaje kasta oo loo dhaqaaqo wuxuu ba qabyo ah laakiin waxaanu ku dadaalaynaa mid caafimaad iyo mid kalaba inaan wax qabyo jiri doonin game-kan imika bilaabmaya horyaalada kooxaha dalka inuu qabyo la aado oo aanu wax kasta diyaarino waa ku talagalka iyaga oo ah si rasmi ah Soomaaliland waxaan la socodsiinaa siiba dhalinyarada inay ka qayb qaataan ciyaaraha dalka xoog kasta oo la gelinayo dhaqaale kasta oo la gelinayo horukac kasta oo loo sameeyo in ay ka qayb qaataan taas oo waxtar ka ah horumarka dalka horumarka dhalinyarada iyo in dhalinyarada la iska hortaago waxyaabaha dandarrada u ah ee ka mid tahay tahriibtu ee ka mid tahay muqaadaraadku waxyaalo badan ka mid tahay inay ka leexdaan waxbarashada kulli wixii dawaka dhalinyarada horumarkeeda oo dhan in ay ka qayb qaataan bulshada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in guud ahaan ciyaaraha dalka inay nagala qayb qaataan waxaan kale oo kooxaha ka soo 18 kooxood ee ka soo qayb galaya koobkan waxaan la socodsiinayaa in muddo badan wasaaraddu diyaarinayay inaan xeer kubadda cagtu leedahay la saamixin inaan wax isweydaartaa jirin in meesha akhlaaq iyo aadaab iyo wixii shaqada loogu talagalay ay la yimaadaan taasoo imika maraysa in wasaaradda dhalinyarada iyo xiriirka kubadda cagtu aanay hal qodob oo kubadda cagta ka leexsan saamix doonin wasiir tartanka kala duwan ayaa garoonka Hargeysa Stadium lagu qaban jiray imikana horyaalada lagu qabanaya wuxuu tartankani kaga duwan yahay tartamadii hore si fariinta aad u dirayso ciyaartoyda ka qayb qaadanaya maxay noqonaysaa fariinta aan u dirayo dhalinyarada ciyaarta ka qayb qaadanaysa waa taa hadda sheegay halkan waxaad ugu soo diyaar garowdaan ciyaar nadiif ah oo aad shuruucda ciyaaraha kubadda cagta doonaan karaa in uu laba leyd ay taagan yihiin mishiinkii oo ah mishiin cusub iyo sunpower marka hadduu mid isbaqtiyo ka kala automatically u galaya hadduu mishiinkaygu baqtiyo automatically sunpower buu galaya hadduu sunpower naga baqtiyana ka kala automatically u galaya ciyaarana maxay kaga duwan yihiin ciyaarihii hore waxay kaga duwan yihiin in kooxihii horyaalada ku soo guuleystay oo kaliya ay maanta caasimadiisu ku yimaadeen dalka ka ciyaarayaan gobolka Awdal waxa ka socda 3 kooxood gobolka Maroodijeex 4 kooxood Saaxil 3 kooxood togdheer 2 kooxood Sool 2 kooxood Sanaagna 2 kooxood marka kooxihii ku soo guuleystay tartamadoodii horyaalada sanadkaas oo dhan soo ciyaaray oo qaarkood ay 18 ciyaarood soo ciyaareen qaarna 14 ciyaarood ay soo ciyaareen ayaa abaalmarin u helay in ay ka qayb galaan waana koobkii ugu weynaa ee ay kooxuhu ciyaaraan tartamadu waa laba ay goboladu ka qayb galaan midna waa mid ay kooxi ku guuleysatay midna waa mid gobolku ciyaarayo gobolka 14 gobol baa ciyaara laakiin nidaamka championka ee kooxuhu waa inay kharashkooda martigelinta iyagu haystaan sanadkii horena waanu ku qabanay kana waanu ku qabanaynaa kuwa dambana waanu ku qabanaynaa kooxda iyadu markaa weyda martigelinteedii in ay diyaarsan weydo wax soo buuxinaysa koox kale oo gobolka kamid ah marka nidaamka marka horeba nooga dagsan baa taas ah annaguna wixii kale ee kharashka ku baxay baanu bixinay Maxamed Umar Daariq warbaahinta 5 TV Hargeysa